دربيجاس موقدا وهذا أنا جاي موقدا ودكسيجا هوسة دقمة آذن يبال قل كجيس كأيا كنتن سنة كهر وحنكبر لعبي فصل ككوبات وحبرشة نسيب ده لكن واحرين هنا عاسكله دكسي قرآن كيالا وتضبعت سنة كهر لا دسي أيان ألف وحمل كبر لعبي السجن نسيب ده السجن واحرين اسبتال كعادي يمال ويبرو شيء واسبتال كهودي اللي جاوا أموليه دكتور كهودي أموليه وحالة دي جري عبد الجفع السجن واتليه واحرين هل كان وحكويا لا حرمتي الدولة دهوسة والديوان كأنه كجري وكارتناش شتدين يجوا حين كويا لين يجينا ولا كله هاتي مالي كبر حين ماله مساجد كاس دقمة عادي بالو جامعة ومسجد كوينا أيو شيخ الصلاة ده نقول برا أبي شيخ أجري أسجنا ولوكلتي مركا مصيبة كذا عذي مجال ذان وحد كجران كرتا أظن مال كلا آدين أنا جت التاريخ دي يربط كجران كرتا هدي سكول كأن فصل كوبات كبلا بحرية دكس القرآن أن ألف وحمل كبلا بهدول حرية هقول حرية كركار كي جم يشيلوها أيو دقمة دول ده هدول حرية سبتال كي اللي يقولوا هدي له كلا تجي واتجرا كرتا ده أنا وأوجد ده أوريلا أمسكيس يرسول marka dhibaatada jirta waad garan kartaa marka in lagu faafiyo uma baahna laakiin waxaan rabaa inaan soo jeesto in nasiib wanaag waxa tahay ra'iisul wasaarihii labaad ee yimaada magaaladan 60 sano ka bacdi 1960 iyo labadii waxa yimid ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya isla markaasna ahaa madaxweynihii labaad ee Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo degmo ka dhigay markay dadku deegaanka codsadeen hadda ma oga hadii laga dhigi karo degmada aadiya balay codsan karaan in laga dhigo gobol iyo in kale ma kala aqaan laakiin gaaran uga wada hadli doonaa dawladda Hirshabeelle gaar uga wada hadlaynaa si ay gobol u noqoto laakiin sidaas oo ay tahay magaaladan dadka Soomaalidu ma oga magaaladani waa magaalada laga waardiyeeyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho hadii ay halkaani nabad tahay caasimadda Soomaaliya ومقدشو ونبض حدينا هل كان النبض هنا عاصمة الصومالية مقدشو نبض معه تسوى وإن لأقاده واستراتيجي قوية بدأ يوبيغا من 19 كيلومتر وجرتا انت قول حيث نلقى سوى نلقى نلوينها الصومالية قارهان مدو iyo waqooyi bari ee Soomaaliya dhabarka sida waaya meeshan wixii ka soo baxay dhulkaas oo ku sii jeeda Muqdisho halkana lagu filtreeyaa ama lagu sii daayaa ama loo gudbiyaa halkan hadii difaaca Soomaaliya uu yaalo madaxtooyada Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya waa nabadgelaysaa hadii halka dayacantaane meeshaas nabad noqon mayso taariikhduna sidaas ay sheegaysaa dawladihii dalka soo marana sidaas ay sheegayaan hadalka mar raba inaan ku dheeraado kaliya waxaan rabaa dadkii isu xil saaray hawshan oo ugu horeeyo madaxweynaha Hirshabeelle dabcan iyo dawladda federaalka taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka lugta Soomaaliyeed iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka oo gartay inay dib dalka Soomaaliya u xoreeyaan an hadaayay xaqiiqatan ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay arrin muhiim oo sheegay wuxuu dhahay Soomaaliya mar kale dhalanaysa Soomaaliya mar kale dhalanaysa waxay Soomaaliya mar kale u dhalanaysaa magaaladan hadda aan joogno degmada aadi baan 35 sano wax domestic order ama dawladnimo kama jirin macnaha dawladii hore 60 ka dhalatay waa duntay tii kale ayaa hadda dhalanaysa andan waxaan rabaa munaasabada inaan uga faa'iideysto arrin kale oo muhiim ah waxaa la joogaa sifa caleedigis waxaa la joogaa xilligii dadka Soomaaliyeed ay noqon lahaayeen bini'aadmi oo u dhaqmi lahaayeen sida bini'aadmiga waxaa la joogaa xilligii dawladda Soomaaliya ay dadkeeda ula dhaqmi lahayd dadkeedu inay yihiin bini'aadmi waana mid keentay maanta in dawladda ay timaado degmadan aadiyabaal si ay dadka u dhageysato oo dadka ugu la dhaqanto si bini'aadmi ah macnaheedu waxaan u jeedaa hadii ay dawlad jirto oo san dadkeeda si bini'aadinimo ula dhaqmay sida hadda kuwa meesha laga kiciyo kaleeto iyo kuwa lamida marka dawladnimo imaan mayso marka hal ku dhiga ah dawladda Soomaaliya
inay dadkeeda ula dhaqanto si bini aadmi ah dadkuna ay dowladooda ula dhaqmaan si bini aadmi ah waa tilaab fiican dowladnimada ah ku soo hartay dowladnimada waxaa iskale shacbiga taas waay haddii ay shacbiga Soomaalidu ay kaceen oo ay doorteen inay dowlad noqdaan ayaa dowladda waxaa u suurta gashay shacbiga inay taageerto macnaha marka waxaan u jeednaa macnaha dowladnimadu waxay tahay midna waxa weeye dowlad ayada dadka iskale dadka midna waxay tahay dadka ayaa dowladda leh dowladda dhalanaysa waa dowladdii dadka lahayd taas waay midda keentay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed abaanduuli ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay niman shacbi ah oo hubaysan inay la socdaan oo la noolaan karaan oo la socdaan kalsoonidaas oo ra'iisul wasaarihii Soomaaliya oo ninka afraad ah jamhuuriyadda inuu niman shacbi ah hubaysan oo cid soo baartay iyo wixii aan la garanayn laakiin iyagu sheeganay inay yihiin niman xaq u dirir haddana duruufta aan ku noolnahay inuu ra'iisul wasaaruhu u yimaado madaxweynuhu u yimaado taliyaha ciidanku la joogo macnaha waxay tusaale ka tahay waxaa bilaabatay dowladdii dadku lahaay macnaha waxaan u jeednaa degmadan Aadan Yabaal ka bilaabaynaa waxaa laga dhisayaa maamul dowladeed oo adinku reer Aadan Yabaal aad leedihiin adinka dowladnimada iskale tii shalay waxaa loo diiday ama loola dagaalamay in la dareemayo inaan la lahayn waa ilaa haddii la leeyahay lama dagaalameen tan adinka iskale dhiiggiinaad ku keenaysiin xoolihiinaad ku keenaysiin waxaad uga badbaadaysiin sheeko ayaa jirta hadda uu sheegay odayaasha mid kamid ah Xaaji Barow aadan uga xanuunsaday wuxuu dhahay waxaana soo martay dhahay wiilkaaga keen qoroga uu ku dagaalamaya keen xoolaha uu cunaya keen dibkow geestana adaa lagu heystaa oo xaqiiqa waa kas Xaaji Barow 70 jir waa dhakhtarkii isbitaalka ugu daawo jiray waa markaa Ingiriiska inkastoo hadda islaagna waxaan u jeedaa macnaha isbedelka dhacaya waxaa la rabaa reer Aadan Yabaalow inaadan dowladda sugina oo adinku aad wax qabsatiin infrastructure iyo dowladda aas-aaskeedu waa haysatiin saldhigi waa dhisan yahay iskuulka waa kaasa waa dhisan yahay isbitaalka daawo u baahan yahay wax waliba inaad adinku qabsatiin waa dhamaatay markii dowladdu ay dadka iyadoo wax kasta qaban jirtay hadda dadka la rabaa wax kasta inay qabtaan lacagtiina isku darsada gurigan wuxuu ahaa jiray guriga martida waxa lagu soo dhaweeyay madaxweynayaal hore waa huba horta jaalisad horta inta la soo dhaweeyay jaalisad inta la soo dhaweeyay laba jeer ha waana lagu gabayowna ku tiyo kuma soo laaban marka ra'iisul wasaarahana gaba fiican iyo shir fiican ku sagootiyay oo soo laabasho leh oo mid fiican oo sii jooga halugu sagootiyo iyo dowladda dhamaantiin waa mahadsantihiin aniguna Xasan Sheekh ahaan iskuulkaasaan ka baxay waa u jeedin waa muuqdaa haddii aanan iskuulkaas anoo maalin fiiro qaawan la qori lahayn shahaadada PhD-ga ma qaadan lahayn ilmihiina qora halkaas ka qora shahaadada PhD qaadanayaan niman caalami yahay noqonayaan ilmihiina keena waxaana ka shaqayn doonaa si shakhsi ah dib u soo nooleynta waxbarashada degmada Aadan Yabaal